السلام عليكم كلنتي wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin umada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ha noolaato aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi maanta waxaan jecelahay oo aan idin wadaa marti sharaf leh oo kamid ah dadka Soomaaliyeed oo aan jecelahay dadka Soomaalinimadu ku weyn tahay inay xushmad weyn u hayaan marka laga hadlo kaalinta uu ku lahaa bahda isboortiga qaranka Soomaaliyeed Axmed Nuur Maxamed Xaanshi oo ku magac dheer Sayga Ruushka laakiin anigu aan ugu yeero Sayga Soomaalida ayaan caawa idin hayaa waxaana uu kamid yahay dadka aan jecelahay in mar walba la joogooda iyo sheekadooda aan xigmad badan ka helo waxaan maanta jecelahay waqtiga aan la qaadanaya in ay la qaadataan barnaamijkeena inta badan waxaan uga hadli doonaa marka laga hadlo noloshiisii xagga isboortiga iyo sidoo kale dadkii saaxiibadiisa ahaa ee xagga isboortiga Soomaaliya ku jiray ha noolaato waa madal dadweyne oo looga hadlo isbeddelka nolosha bulshada Soomaalida saameynta go'aanada siyaasadda xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini'aadanimada ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato Axmed Nuur ku soo dhawow barnaamijka ha noolaato waa mahadsantahay Yaan Xuseen Cabdi waraysiga gaarka oo barnaamijka ha noolaato caawa anoo nin sportisa aw siyaasada kale uga hadli jirtay anoo nin sportisa caawa inay u waraysato aad iyo aad midaan ku soo dhaweynayo waa lagu huri waayay anigana runtii waan jeclaa marar badan ka fakarayay inaan ku soo qabto laakiin waxaan rabaa inaan si weyn kaaga mahad celiyo inaad iga aqbashay inaad barnaamijkan igala qayb qaadato su'aashayda ugu horeyso oo jecelahay Axmed Nuur inaan ku weydiiyo waxay tahay anoo kugu yeeri doono Sayga Soomaalida maxaa lagu bixiyay Sayga Ruushka bismillaah horta taariikhdan Sayga Ruushka horta wax badan waa la iga wareystay marka Sayga Ruushka waxa igu baxshay waxa jira anaga carruuraha markaan ahayn waxa jirta ku dayasho waxa jirtay oo lagu dayanayo ma aragtay nimanka internationaliga oo caalamiga ah oo sportska iyo wax la midka ah aloo waxa dhacday adiga hadda taariikhdeeda marka la fiiriyo aanan dhaweyn oo lixdameeyadii iyo wixii maxaan ilaha la sinaa ah waxa dhacday koox la dhaho Daneba oo Ruush ah oo markab la socota waxay timid Soomaaliya markay Soomaaliya ay timid waxa dhacday in nin Ruusha oo kubadda dadkii ciyaarayay wuxuu ku dheelay surwaal dheer iyo funaanada lambar 6 wati anaga waagaas ku dayasha iska jirtay anagana waxaan ku ciyaar jirnay bacaadada meeshaan ku ciyaar jirnay markaas waxa dhacday anigana surwaal dheer oo mahrajaanada kuwa lagu aado kaleeta ama luuliyooyin kuwa lagu aadi jiray oo kaleeta intaan qaata waxa dhacday inaan funaanad lambar 6 aan watay sida midaan ugu ciyaaray ay noqotay aloo ninka standardkiisa aad u sareeyay waxa dhacday nin la dhaho dhintay Allah u naxariistay Cabdi Axmed alihi jiray wuxuu ku magac dheeraa magacaan Talyaani Afgaraad oo saduro lafta adag oo ku magacaawna ninkaasi ii bixiyay Sayga Ruushka waan ka dagaalamay intaan ka dagaalami karo inaan saas leeyahay sababtoo ah ninka igu mitlinaya wuxuu ahaa nin khatara ما شاء الله أنا مركي دمبيت هذا حلقة أنكو اختقاتي نقطي مقعس أسقى يعني ما أردت أما تاريخ أنكو قال مركي فرسمدي سيو قابكو عيار جرى الله صباح مركي دمب كل دلال كسواء سبي إن كستو ما أردت إن كاس حوجا ما أردت مدو يجوا نكسيها إيه هيت لكن دلال كي وان سبي دلال كي أن سبي هذا وقت سومالي قرهدين نقول دي كوح نقول هيت أنت إن محل لها مقعس مدو يجوا تري أي نقطة ويا سير روش كعوين كستو جعلنا واحد بدن كاوي ديو وقت قاعد دلتي يوم ماشي هتكون دلتي laakiin waxaan ka hormarinayaa habeenkii xorriyadda 1 July xageed joogtay maxaad qabanaysaa aruuran hawaan yaraan nin yaraan aha garashadiisa ay jiraan laakiin waxa jiraan ku sheega dadkan sideeda maanta jira aan ku sheega waxa jirta nin 15 sano ama 20 sano ku dhow oo yani wax taariikh midkoodna aan ka sheekeyn karin aniga waa aan yaraa anoo yar laakiin taariikhiyan waan xasuusan karaa habeenkaas asaga ah yani waxa dhacay waxa jiraan ku sheega anoo ahaan da'deydana aad ay u yaray anaga marka 6 sano jiro kale taan for example ku sheega ama 7 sano aan jiray waan garan karnay yani wax alla wixii maxaan ilaha taariikh wadanka ka dhaca ama sida ay wax yihiin marka habeenkaas ayada ahi kulli caruuran anoo caruura waxa dhacday yani inaan farxadii yani xornimada waa la qaatay leeyahay maxaa loo qaatay kan inta inaan habeenkaas maxaan ilaha aan rash riday kulli waan ridnay rash aan ku sheega laakiin da'di yaran ahaa wayahay iga sheekay marka habeenkaas sidee Muqdisho u ekayd kulli waxaan filayaa dad badan oo Soomaaliya oo meel walba yimid oo meel walba Soomaalidu waa ka timid waqooyi koonfur iyo bari iyo galbeed habeenka maxaad ka xasuusataa habeenkaas waxaan ka xasuustaa horta waxa waay taariikhdeeda nolosha ah habeenkii ugu horeeyay oo aan seexan waay nolosheedaba markay noqoto waa habeenkii ugu horeeyay oo aan seexan nin yarna waan ahaa waxa dhacday subaxii
markii gurigay aan tegay aabahay iyo reerkii iyo in la igu kacay oo habeenkii oo dhan aan la seexan oo raadin la igu jiray oo yani hadda nin yar oo ama 7 sano jira ama wax la mid ah jiraan kaaga hadlaa oo yani aan soo seexan xoogaa dhibaatadeeda mid ay leedahay inay noqoto marka waxa dhacday habeenkaas waan xasuustaa waxa dhacay baaruud baa la qarxinayay oo xabadaa la ridayay oo yani dadka waxay ahayn ma aragtay dad saas ee usul dhaxyaacay kaaga darne habeenkaas nin ani ila aadan iyo nin iga yarba intaba mid ay soo jeedanayd laakiin xornimada macaanigeeda aad ma aan u fahamsanayn laakiin anaga xornimada la qaadanaya wax fiican ay dadkii yani maadaama majority-goodii ay qabaan anagana farxad taas unbay noo ahayd kolay waa habeen ciida oo dadka dhan waa wada faraxsan yihiin feestaa jirta adiga ilmo yarna waad ahayd maxay kaaga dhignayd habeenka ma dadka ciidayaad iskala ciidaysay mise maamuus gooniya kula haydoo maya fiiri maamuus gaara ma ileen maamuus gaara waxay igu lahayn ma aragto 7 sano markaan jiro for example aan ku sheegaa ma ii yeelan karto waxayna igu yeelan karin yani waxay ii ahayd munaasabada mustacmarkan iyo waxaan iyo hadduu tago inaan horumar iyo wax midaan suubinayna qalbigayga kulley waa ku jirtaan ku sheegaa yani inkastoo markii horeeto ninka gaalka markuu meesha maraya si senior la dhahay la istaagay la kan inaan wixii midaan ka xoroobayna inay noqonayso maxaan ilaha qalbigayga way geli kartaa markay garashadaas ma xusuusataa markii ninka cadaanka wadada maraya in xaq meel fog laga salaami jiro loo istaagi jiro absolutely si fiican waa xasuustaa markii waan yaraa iskool aan dhiganay iskool haddii aan dhiganayay waan garan karaan ku sheega yani ma aragtay yani nimanka cadaanka ama gaalada yani waxa mowqifka iyo meeshii ay marayeen meeshii ay taagnaayeen marka waxaan ku sheegaa taas aniga dhaaf dadkii iga waaweynaa oo odayaasha ahaa markii gaalku meeshii u marayay istaagi jiray yani ma aragtay senior si ama kan ama wax la midka mid ay dhahayeen ay ahaan jirtay intaba waya dareenkaagii marka ma qiyaasi kartaa maadaama ilmo yar aad tahay ubax ah oo wadanka usoo koraya wadankiisu isticmaar ku jiro markaad aragto dadkii waalidkii iyo waayeelkii iyo dadkii Soomaaliyeed oo nin ajnabi oo dalkooda jooga u istaagaya oo mataqaana salaan sharaf siinaya wallahi markaad eegtaan ku sheega yani xogaa wadannimadaasi garaaday u baahan tahay kulli yani ninkan dhulka aanan lahayn taasi uu suubinayo ama taasi uu yeelayo ma aragtay ama taasi loo yeelayo xogaa dareen waan u lahaa markii waxaan ku sheegaa hadda markaa fiiriso dadka hadda generationka ama kaagaba aan ka qabtaan kaaga hadlaa iyo anaga generationkeeni waa kala duwan yahay anaga waqtigii asaga ahaa idinka ma aadna arag xilligii mustacmarka iyo xilligii xornimo la qaatay iyo xilligii kan ay ahayd idinka ma aadna aragaan ku sheegaa laakiin markaan realitygeeda xaggeeda aan u kacnaan ku sheegaa anaga dareenkeeda waa aan lahayn markii waxaan ku sheegaa ninka gaalka markuu meesha maraya waa laga istaagi jiray saanay ahaan jirta marka la arko salaan uuna ku salaamayn adiga aad salaan maxaan ilaa midaad salaanta ay ahaan jirtay intaas oo dhan kolay dareen waa ay ku gelinaysaa ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato marka haddaan ku weydiiyo marka waqtigaagii taariikhda dhalashadaadii iyo wax miiga sheegi kartaa inkastoo wadamadan qaar ay private tahay arrimahaas laysma weydiiyo aniga taariikhdayda waxaan hadda wax kaaga sheegin markii hadda aanba ku dhahay ma aragtay aniga 7 sanaanba jiraba haddaanba ku dhahay waa gartaa uma leeyahay hadalkayga taariikh waa ku dhiman tahay aan ku dhihi karo hadda oo aan ku sheego ma ay jirto waaya marka waa 53 meelahaas waaya marka magaalada Muqdisho haddaan u galno waqtigaad koraysay heerka waxbarashada iyo himilada dhalinyarada magaalada ku nool maxay tiigsan jireen maxay rabeen inay noqdaan carruurta markay yar tahay nin walba wuxuu yiraahdaa nin engineer aan rabaa nin dhakhtar aan rabaa nin pilot aan rabaa marka maxaad xilligaa ku hamin jirtay aniga wallahi xilligaas ku hamiskayga ma jeedaa tan waxbarashada iyo waxyaabahaas aniga horta secondary level aan iska noqday oo aan ka baxay laakiin waxbarashada xoogaa waxaad muddaa xoogaa in la iga fiicnaa oo yani aan jeclaa cayaaraha iyo waxyaabahaas wax la midka ah weligay allahayna waxa yani cayaarahaas iyo marka aan ku jiray iyo wax la midka weligay hormuudaan ahaa waxaan jeclaa inaan wax aasaaso sportska wax aan ku aasaaso si fiican maxaan ilaa horumarkiisa wixii kulli ma aragtay mid iga maran oo yani aan jeclahay ayaan ku sheegay yani marka waaya waxaan jeclaa marka Axmed Nuur sidoo kale inaan ku weydiiyo kaba soo qaad markii aad ku biiraysay ciyaaraha ma xusuustaa markii ugu horeysay kubad laado waan xasuustaa kubad markii ugu horeysay aan laado waxay noqon kartaa taariikhdii 60meeyadii iyo wax la midka ay noqonaysaa ku sheega 60 iyo ciyaalka anagoo ah xilliga kubadda cagta marka laga hadlayo waxaan u maleynayaa dad badan ay sheegaan waqtigii kacaanka ayaad moodaa in ay wax walba isbedeleen oo ciyaaruhu kaalin ku yeesheen nolosha bulshada maxaad iga sheegi kartaa arrimahaas wallahi taasi ma ujeedaa haddii taasi maqalkaasi la yiriba
wax fiican laga sheegay sababtan ku sheegaa yani horumar wadankaba markaad fiirisan ku sheegaa waxyaabaha haday waxbarasho noqon lahayd iyo hadii ay noqon lahayd sports iyo hadii ay artaha fanka noqon lahayd iyo hadii ay noqon lahayd maxaan ilaha artaha kaleeto intaba kacaanka xilligiisii horumarka Soomaaliya ay gaartay ama u gaarsiiyay wallahi taariikhdaas ana inay soo noqonayso fikriyan ma qaban ku sheegaa yani taariikh hadda maanta aan koobi karo tii macaan ilaa xilligii kacaanka xilli ka fiican taariikh Soomaali ma soo marin way hadda rajo badan kama qabtid wallahi qofka intuu nool yahay rajo uu iska qabaa hadda inkastoo hadda ma aragtay hadda maanta dawlad maanta ay jirto oo yani aan rajaynayno xogaa ma aragtay isbedelkan iyo waxan iyo kulli inay dhaanto 22 sano iyo rafaadkeedii way markaad ciyaarta gaar ahaan taariikhdaadi ka hadasho maxaa kuugu xiiso badnaa oo aad xusuusataa oo raad kule noloshaada waxaan xasuustaa waxaan ciyaaro u tagnay Ethiopia markaan ciyaaro u tagnay waxaan ahayn kooxdeena waxaa la jiray Jeyaan ahayn waxaan la ciyaarinay kooxdii oo maxaan dhihi lahaa Ethiopia koox la dhaho San George waxaan ahayn horyaalka Soomaaliya ahayn iyo horyaalka Ethiopia ayaga ahaayeen kan ku sheegay marka waxaa dhacday marka Ethiopia tagnay 17 iyo 22 midkood waxaa dhacday kooxdii aan la ciyaarinay markaan garoonka tagnay waxaa dhacday cidda marka isfilimentada ay soo galisay meesha aan training xoogaa isku kulleynaa waxaa dhacday in markaan soo galnay nala sabciyay meeshii oo dhan yani Ethiopia meesheedii garoonkeedii Addis Ababa taageerayaal badan oo Soomaaliya joogay maya adiga sacab fiican ana soo bixi allo sacabkaas sacab iska soo dhaweyn inuu ahaa aan dareenkeeda qabaan ku sheegaa ma mid kalgacal loo hayo ma uu ahayn ma dhici karto adiga waxa dhacday taas soo dhaweyn inuu ahaa laakiin anaga kalgacal in loo hayo aniga fikriyan aan inta qaadsaday bas markii dambe isfilimentadii gadaal u soo noqonay qololkii aan galnay ciyaartii mar alla markii inaan bilowna aan rabnaa waxaa dhacday in aan garoonka galnay gool ay naga dhaliyeen gool markay nagu dhaliyeen meesha sawaxankii iyo buuqi ka dhacay waxay noqotay makusha inaan cararnaan damacnay anagoo dhanba ka yaacnay meesha naxdinta waxaan isleeyahay dadkii isbedelka xaguu oga yimid iyo waxa la midka marka horta xiisad ahaan u jeedaa ciyaarahaas meeshaas aan u tagnay waagaas u jeedaa yani ciyaaro waxay ahaayeen ma aragtay sabtino Ethiopia Soomaaliya timid ayadana markay timid annagana Soomaaliya aan uga badinay mustaqbalka ciyaaraha gaar ahaan sportiga ee dalka iyo xitaa dhalinyarada qurba joogta maxaa kaaga muuqda oo aad isleedahay mustaqbal fiican baa ka soo ifaya halka iyo maxaa loo baahan yahay in la helo ayaan le horta war aan ku leeyahay Soomaaliya sportskeeda aad u hormaray aad u hormaray maanta mas'uuliyiinta maanta maxaan ilaha ciyaaraha Soomaaliya maanta maamulkeeda iskalena waan u hambalyeynaya sida wanaagsan ay ugu babacdigeen ama ay u qabteen maanta wax qabadka sportska marka aan kala saarno wali aniga wixii professionalkayga ki ahayaan ka hadlaya oo footballkan ka hadlaya atleticada teeda iyo yani waxyaabahaas iyo olombikada qaybo badan ay leedahay ani qaybtaan xiriirka kubadda cagtaan ka hadlaya yani professionalkayga ahayd waa marka waxaan ku sheegayaa kooxda maxaan dhihi lahaa yani dadka xiriirka madaxda u mas'uuliyiintooda waa bogaadina waan u hambalyeynaa waxaan ugu hambalyeynaya maanta garoomada ay subiyeen for example dadaal kasta ku qabtaan annaga waagi aan ciyaari jirnay waxaan ahaan jirnay 8 koox hoos aan u dhacay waa gartaa uma leeyahay waagi ugu horeyso aniga ciyaaraha aan soo galiyay waxaan ka nimid Serie C kooxda sida biyan imanay Serie A yaan imanay wixii ka dambeeyay 12 wixii ka dambeeyay wixii waa baabeen totally waa baabeen waxa dhacday ay baabeen maanta waxay maraysaa Soomaaliya bacaadka Serie D Serie C Serie B Serie A inay imanayaan yani darajada iyo horumarka ay gaartay aan ku sheegay dadkay garoomada siday ka dhigtay kooxaha waagi 8 ahaa oo hoos aan u dhacayn oo kor u taagna mar walba maanta yani ay ka tilaabday noqotay maanta ay koox ka imanayso Serie C Serie B imanayso Serie B koox ka imanayso Serie A imanayso Serie A kuwii ka dhaco Serie B ay u noqonayaan Serie B da kuwii ka dhaco Serie C ay u noqonayaan maanta horumarkaas maxaan ilaa Soomaaliya sportskeeda mid u gaarsiiyay ay tahay waan u hambalyeynaa midda labaad ayaan u ciyaarihii gobolada ay ku qabteen sidoo kale ayadana sidoo kale mid aan ugu hambalyeynaa ku amaanayo waa xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta inkastoo ma aragtay olombikada nafteeda dadaalkaas iyo mid lamid inay gaarto qaybahan atleticada iyo wax la midka ah ayadana sidoo kale midaan aad u rajeynay insha Allah inay noqoto
sidaad u aragtaa marka dhalinyarada jacaylka ay u hayaan ciyaaraha gaar ahaan sportiga ciyaaraha dhalinyarada aad iyo aad mid ay u jecel yihiin sababta waxaan ku sheegaa dhalinyaro marka qofka uu yahay for example taydiyaan ka qabanaya aniga markii aan dhalinyarada aan ahaa iskool anoo dhigana ama wax kasta anoo waxaan ka jeclaa balooniga kubaddaan ka jeclaa ama sportskaas waxaasaan ka jeclaan ku sheegaa dhalinyaro qofka marka uu yahay orodkuu jecel yahay energigaas ku jira iyo waxaas ku jira ma aragtay meeluu ku baabi'iyuu rabaa marka waxa waaye yani wax aad u wanaagsan waaye oo dhalinyarada maxaan dhihi lahaa sportska haddii maanta la raadiyo niman fiican haddii la raadiyo hadday noqon lahayd oroda hadday noqon lahayd hadday bootimo noqon lahayd hadday footballka noqon lahayd hadday booliga noqon jirtay kulli wax fiican hadda Soomaaliya waageedii ugu horeysay kacaanka inta uuna burburin for example markaan kuu sheego waxaan ka iloobay waxaa jiri jirtay kooxda Soomaaliya ee basketballka ciyaartaan kaaga hadlaa anaga footballkaan ahaan jirnay kooxda basketballka ciyaarta waxaan kuu sheegaa ciyaartooy waxaa jiri jirtay legendary ah footballka sidoo kale ciyaartooy waxaa jiri jirtay maxaan dhihi lahaa legendary khatar ah iyo waxa la mid ah aan kuu sheegaa dalkay marka wixii waxaad moodaa maanta xoogaa maanta ka opportunity fiican tahay ama ka challenge fiican tahay maaragtay haddii maxaan dhihi lahaa qabasho Soomaaliya teeda ay noqotaan ku sheegaa dadaalkina aniga haddii inuu socdo waan qabaan ku sheegaa laakiin ciyaartooyda oo maanta ciyaaro for example aan ku sheegaa Soomaaliya ciyaar aad aan u dhaliila jirta ciyaaraha Ethiopia ay la ciyaareen hadda waagu dhaweeto waxa dhacday hal iyo eber looga badshan ku sheega hal iyo eber looga soo badshay marka nimankii aan rajeynayay hal iyo eberka inay ama laba ka gudan ama kan gudan waxa dhacday ma ku sheega in ciyaartooydii kalsoonidii ay ku badin lahayn marba inayna raadinin yani ma aragtay goolka hadii la idinku ekaado difaac goolka hadii la idinku ekaado way fiican tahay ilaahay marka waxaan ku sheegaa ayadana waxaan rajeynayaa ilaahay idinkiisa mujeedaa inay mid ay hagaajiyaan inay waa tahay saaxiibayaal intaa waxaan ku dhan waraysigii gaabnaa ee aan la yeelanaynay Axmed Nuur Maxamed Xaanshi oo ku magac dheer sayga Ruushka oo marti noogu ah barnaamijka Ha Noolaato ee toddobaadkan oo aan qaybtan kaga wareysanaynay arrimaha la xiriira sportiga gaar ahaan noloshiisii iyo waxyaabihii wadanka uu u soo joogay intaynu mar kale kulmi doono waa Yaanla Xuseen Cabdi ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri Ha Noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid